الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada abna official badda janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuusoo gaaraan muuqaaladan xiga. Muuqaalkani waxaa kaga sheekay doonaa waa maxay suuqgeyntu. Suuqgeyntu waxaa loola jeedaa waxqabadyada shirkad ay qaado si kor loogu qaado iibsashada ama iibinta wax soo saar ama adeeg. Suuqgeynta waxaa ka mid ah xayeysiinta, iibinta iyo u gudbinta alaabada macaamiisha ama ganacsiyada kale. Suuqgeynta qaar waxaa sameeya kuwa gacan saarka la leh shirkadda. Suuqgeynta ayaa raadinaysa inay iswaafajiso badeecada iyo adeegyada shirkaddu la leedahay macaamiisha, kuwaasoo doonaya inay helaan badeecadaas. In la helo badeecadaha macaamiisha u baahan yihiin ayaa ugu dambeyntii xaqiijinaysa faa'iidada shirkadda ay u baahneed. Haddaba, waxaa jira 4 ba oo marketingku leedahay ama ay ku kooban tahay. 4 ba waxaa loo yaqaanaa product, price, place, promotion. Badeecada, qiimaha, goobta iyo soo bandhigida xayeysiinta waa 4 Bs ee suuqgeynta. 4 Bs ayaa si wadajir ah u sameeya isku dhafka daruuriga ah ee shirkaddu u baahan tahay si ay suuq uga sameyso wax soo saar ama adeeg. Product waxaa loola jeedaa shay ama sheeye ay qorsheynayso meheradu inay u soo bandhigto macaamiisha. Badeecada waxay buuxisaa maqnaanshaha suuqa ama baahida macaamiisha ee qadar badan oo badeecadii hore u jirtay ah. Price qiimaha waxaa loola jeedaa inta shirkaddu ay ku iibinayso badeecada. Marka la aasaasayo qiimaha, shirkaduhu waa inay tixgeliyaan qiimaha shay walba, qarashka suuqgeynta iyo qarashaadka qaybinta. Place goobta waxaa loola jeedaa qaybinta badeecada, meesha la keenayo badeecada, meesha lagu soo bandhigayo badeecada. Tixgelinta muhiimka ah waxaa ka mid ah in shirkaddu ay ku iibin doonto badeecada iyada loo marayo dhinaca dukaanka ama ayada u marayso qaab online ahaan oo adeegsanaysa internetka sida Facebookga, Instagramka iyo website-keeda. Sidoo kale iyada oo loo marayo labada dariiqo ee wax lagu qaybiyo. Promotion xayeysiinta waxaa ka mid ah nashaadyo kala duwan sida xayeysiinta, iibinta, dalacsiinta iibka, xiriirka dadweynaha, suuqgeynta tooska, kafaala-qaadka iyo suuqgeynta dhumaaleysiga ah. Haddaba, marketing waxaan ka diyaari doonaa koorso aad u dheer oo insha Allah mashruuceeda hadda aan ku jira diyaarinayo. Waxaan rajeynayaa hadduu Alla idmo inaad ka wada faa'iideysan doontaan. Muuqaalkan aad buu ku anfacay. Fadlan si ay muuqaaladan xiga kuu soo gaaraan, subscribe saar janaalka insha Allah. Mahadsanidin.